بسم الله الرحمن الرحيم. تيد saacadda markii la xisaabinayo laga soo bilaabo xisaabta ugu horeysa ee math et la dhaho ilaa iyo math fem waxaa loo qeexaa sidan et uur ama hal sano waxa waaye 12 bilood 12kii biloodna waxa waaye 365 maalmood. halkii saacna waa 60 daqiiqo. halkii saacna waxay yiraahdaan 60 lagu dhuftay 60 sekunder oo markaa noqonaysa 3600 oo sekunder. halkii maalin waxaa la yiraahdaa waxay noqonaysaa 24 saacadood. halkii daqiiqana waa 60 sekunder. marka xisaabta saacad markii la xisaabinayo waxaa loo xisaabiyaa laba nooc. on va la timmar till minut mar aad saacad u bedelaysid daqiiqado iyo mar on va la minuter till timmar oo macnaheedu tahay daqiiqadihii ayaa u bedelaysa saacad. tusaale ahaan 132 daqiiqadood u bedel saacad meeqa saac ayay noqonaysaa oo kaleeto. marka waan tusaale ayaan qaadanaynaa. markii saacad loo bedelay daqiiqado waa loo qeybiyaa xisaabta. tusaale ahaan 3 saacadood lagu dhuftay 60 daqiiqo. markii xisaab loo bedelayo timmar markii loo bedelay minute waa ku dhufanaysaa 60 ayaad ku dhufanaysaa. hadda waxay noqonaysaa 180 daqiiqado minute. marka aad saacadda u bedelaysa daqiiqado waa ku dhufanaysaa 60 ayaad ku dhufanaysaa. laakiin markii aad minuter timmar ama daqiiqadaha u bedelaysa saacad waad u qeybinaysaa. tusaale ahaan 132 daqiiqadood minute ayaa waxaa lagu dhahay waxaad u bedeshaa saacad. marka waxaad leedahay 132 daqiiqadood loo qeybiyey 60 waxay noqonaysaa marka 2.2 hours oo markaas u dhiganto maxay 2 saacadood iska dhacday. marka waa inaad ogaatay markii on vandling lagu sameynayo timmar till minute waa ku dhufanaysaa. marka on va la minute till timmarna u bedelaysid waa u qeybinaysaa. marka xisaabta maanta insha Allah taala kaas ayay ku eg tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullah.